Bismillaah, assalaamu calaykum. Waa idin salaam asxaabta meel walbaa joogtiin kusoo dhawaada channelkeena Bushra Cooking and Healthy. Asxaabta I hope ina caafimaad qabtiin, caafimaad idin rajeynaa meel walbaa joogtiin. Maalmahan waa kala maqnayn, I'm sorry, waa ka xumahay, waa mashquulsanaa. Maanta waxaa idin wadaa wixii aan ku mashquulsanaa almost 2 weeks inaa idin keeno insha Allah. Waxaa rabaa inaa idinla sheer gareeyo inaa soo saaray saliid oo tayo iyo waxtar leh. Saliidaas oo maxaa la dhahay maasha Allah aad iyo aad loogu bogay, aad iyo aadna kuugu caawinaysa timahaaga oo qof kasta yar iyo weyn, nin iyo naag ay isticmaali karaan. Asxaabta saliidan aan sameynay waxaa waaye saliid maasha Allah lagama sheekeyn karo. Dadka isticmaaleen oo hore u isticmaaleen resultigoodana waa idinla soo wadaagi doonaa. Saliidan hadda idin sheego waa saliid dabiici ah, saliid oo mudaawaad ah, saliid oo maxaa la dhahaa waxyaalo badan ka caawinayso dadkeena Soomaaliyeed oo u baahan saliid asli ah, saliid yacni quality leh waaye saliidan. Actually saliidan saliid u horeysay aan sameynayo ma ahan, saliidan saliidii labaad waaye. Saliidii u horeysana gadaal aan idinka tusi doonaa. Waa ku guuleysanay, meel walbana way gaartay oo ka mid ah adduunka qaarkiisa almost Soomaaliya. Saliidan waxay ka samaysan tahay waxyaalo badan aan inta kusoo koobi karin. Waxyaalaha ay qabanaysana inta kuma soo koobi karo. Haddaa idinka taataabto saliidan waxay kuu tarayso kow waxtarkeeda waxa waaye timaha problemka kow uu qabo waxa waaye tinta siibanayso dadka qabaan hair fall iyo hair loss-ka way kaa caawinaysaa. Waxay kaloo kaa caawinaysaa timaha dandruff-ka way ka bixinaysaa iyo qolfaha iyo nabar hadduu haysto tinta lafta ku nadiifinaysaa. Waxaa ku jiro saliido oo antibacterial la dagaalamayso, agoolka la dagaalamayso ku jiraan. Waxay kaloo kaa caawinaysaa timaha gurmanayo jajabayaan ayagana way ku istaajinaysaa. Tinta jajabaysana timo qurux badan oo israacsan ay kaaga dhigaysaa. Tinta kaama jajabayso, kaamana go'ayso, siibkana way istaajinaysaa. Waxay ku siinaysaa volume, hair growth ka ku sameynaysaa. Timo waxaa helaysaa volume leh oo culays ah oo thick ah. Hadday tintaada timo khafiif ay yihiin, tin waxay ku siinaysaa culus oo xabad haysato. Waxa waaye wax la soo tijaabiye waaye. Hadday timaha kaa sikadeen, tintii sikatay way soo celinaysaa. Hadda timahaaga qof oo maxaa la dhahay durkeen ama salxanyo sida loo yaqaano haysto way kaa baabi'inaysaa. Haddaa haysatid ilmo yar oo timaha u bixi waayeen oo jeegada markaa u seexisid tinta ka xiirmanaysay asagana way u sameynaysaa, tintii way u soo bixinaysaa. Dhinac kastuu cunuga u seexdo. Ilmaha Soomaalida waa badankooda ilmayaalka timaha gadaal ma haystaan, timahooda ma baxaan. Ayagana waxay siinaysaa volume, timo waxay siinaysaa thick ah. Dadka waaweyna waaba saa idin sheegay hadeertaan adduunka meel kastaa tagtid maxaa dhib ka jiro hair fall. Qof kasta muxuu haystaa hair fall, maxaa la dhahay hair loss oo waxyaalo badan keenaan. Way kaa caawinaysaa ayadana. Waxay kaloo kuu taraysaa saliidan maxaa la dhahay timaha kuu bixinaysaa. Main thing oo dadka jecel yihiin qof kasta muxuu ku riyoonayaa oo dreamkiisa ah timo qurux badan oo dhaadheer inaa haysatid. Naag quruxdeedana waa timo. Hadda timo dhaadheer haysatid waa qurux badan tahay, means like maasha Allah quruxda dumarka timaha waaye. Maxay ku siinaysaa tin qurux badan. Saliidan guarantee waaye, waxaa lagu siinayaa within 2 weeks. 2 weeks timahaaga hadda isbedel ku heli waysid, actually 3 days dada jawaab ku soo celiyeen. Insha Allah codadkaas iyo informationka dadka xayeysiiyeen saliida video kala ka soo sameynaa. But waxa waaye saliidan 2 weeks maxay ku siinaysaa exchange ku sameynaysaa. Timahaaga way bedelaysaa, lifekaaga wuu bedelmanayaa. Tinta jecleed aa ku riyoonaysa ayaa helaysaa. Hadda u soo laabano sida loo isticmaalayo saliida. Waxaa u isticmaalaysaa marka u horeyso aa marsanaysid timahaaga waa inay nadiif yihiin. Always tinta maxay ku fiican tahay inay nadiif tahay markii wax la marinayo si ay wax u qaadato oo scalp-ga wax u galaan. Asagana sharaxaadiisa badan video ka soo sameynaya insha Allah. Laakiin
tinta waa ku masaajaysaa habeenka first night-ka oo saliidda aa isticmaalaysa ama day ha ahaato ama habeen ha ahaato timahaaga oo nadiif oo qalalan tin qoyan saliid mala mariyo asxaabta tin qoyana mala shaleeyo sug timaha qalalan saliidda qabo ku masaaj cidiyaha ha kula masaajin like farahaaga fingerska ku masaaj si tartiib ah circular motion ku samee si uu dhiigga u dhaqaaqo kadibna saliidda timaha baarkoodana mari afka horeeta ka mari laftana ka mari ku duub seexo subaxii the first night subaxiisa tintaada isbedel waa arkaysaa make sure waa kasoo commentiga iigu soo reeba insha allah saliidan meeshaa ka heli kartid waxa waaye Nairobi Kenya lambarka maxaa soo dhigaya hoosa soo dhigaya commentiga descriptionka soo dhigaya saliidan saasaa u isticmaalaysaa saliidan maxaa la dhahaye saliid oo iska dhaqaysid oo aa ku wareeraysid ma ahan saliid oo la dhaqaayo oo shaambo ha ku dhaqin lagu dhahayo ma ahan waa saliid dabiici ah waa saliid geeda ah ingredientsgeeda waxa waaye saliid Indian ah oo maxaa la dhahaye ingredient Indian samaysay ayaa laga hagaajiyey waa saliid quality leh asxaabta marka insha allah coming soon hair maskgeeda soo socdo insha allah hadduu ilaahay maya dhihin iyo waxyaalo badan productiga hal xaba ma ahaanayo productiga markuu fiican yahay quality leeyahay waxyaalo badan ayuu soo saaraya kambaniga so insha allah more product way soo socdaan stay tuned idin leeyahay asxaabta qaaliga ee meel walbaa joogtiin kusoo dhawaada haddaa usoo laabto dadka qaadan jira saliidan magaceeda waxaa la dhahaa ixsaan herbal oil waa saliid tayo iyo waxtar leh dadkii hore u qaadan jiray magac kale ayay u yaqaaneen actually magacaas kaleeto idin sheegi doonaa wax yar kadib saliidan marka haddaa ku rabtid jimlo waa lagugu siinayaa haddaa ku rabtid tafaariikh waa lagugu siinayaa lambarkaa ka helaysid iyo lambarada kale aa ka helaysid lambarka u horeeya hoosaa idiin soo dhigi doonaa insha allah meelaha ka helaysiina lambarkaas ayaa kala xiriiraysiin okay saliidan dadkii soomaaliya u qaadan jiray soomaaliya hadda soo diri magacyaalkeeda like muqdisho xamar iyo hargeysa iyo gaalkacyo burco kambala gabdhihii u qaateen garis gabdhihii u qaateen iyo mombasa gabdhihii u qaateen all intaa idinka salaamaya haddaa aragtiin videogan dadka qaatoo dhan oo jimlada ku qaadan jireen waa diyaar lambarka kala xiriiraysiina hoosaa idin dhigaya insha allah kusoo yaaca saliiddii way soo noqotay almost gaab ayaa jiray xoogaa hakadaa galay maadaama hakad galay hadda way soo noqotay saliiddii insha allah saa u qaadan jirteen iyo qiimo barays oo macquul idin cajab gelinayo ayaa ku helaysiin asxaabta waa un lasoo casriyeeyey wax laga bedelo male saliiddi waa saliiddii kusoo dhawaada ixsaan herbal oil asin aa u taqaaniin xariir herbal oil xariir actually dad badanaa ogeyn sirta ka dambeyso haddaa idin sheego asxaabta xariir iyo ixsaan waa hal saliid oo different magac loo yeelay oo maxaa la dhahay different like number uu hadda maamulayo uuna gacanta ku hayo sababtoo ah kambaniga qofkii sameeyey waa hal qof saliidda hadeertaan kheyr allaha siiyo walaashii hayso gabadhii hore haysayna maasha allah kheyr allaha siiyo ayadana gabar walaashii ahayd laakiin xariir hakadaa galay I hope inay soo noqon doonin mar dambe haddee soo noqonaysana waa idinla soo socodsiinayaa ama haddee magac kale kusoo bixi doonto insha allah but hadeertaan tana meesha ku jirto ixsaana sameynay maadaama xariir hakad galay asxaabta xariir qaadan jireen kusoo dhawaada magacayga bushra xasan waaye qoftii xariir samaysa ani waaye xariirna waa u bogteen dadka reer youtube oo xariir xayeysiinayeen aadaa idinka mahadcelinaya maanta intaas markasta commentiyaasha oo idinku soo mahadcelinayay mar alaal markaa saliideeda ii xayeysiin jirteen aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin gabdhihii reer youtube ahaa oo xariir ii suuq geliyey oo xariir maxaa dhahaye shaqo weyn ka qabtay oo gacan weyn ka geystay
idinka ima taqaaniin laakiin ani ayaa idin aqaano. Wax kasta maxay leeyihiin secretkaskana mar ayuu soo baxaa. Mar hore waa rabay inaan soo sheego laakiin waqtiga ii saamixi waaye. Marka aad iyo aad ayay u mahadsantihiin. 1 iyo 2 ma idin dhihi kari, heblaayo iyo heblaayo ma dhihi kari. Asxaabta xariir hayeen oo xariir suuq geliyeen oo xariir sidii la uga shaqeeyeen aad iyo aad idinka mahadcelinaa. Jazaakumullah khayr. Businesska waa ii kala kiciseen maasha Allah. Anigana waxaa jeclaa wax tayo leh oo dadkayga Soomaalida anfacayo. Wixii aad bartay iyo wixii aad ka faa'iiday ajnabiga inaan idinla sheer gareeyo aan idinku taro. aad u mahadsantihiin dadka asxaabta xariir ii suuq geliyeen oo ii xayeysiiyeen. Hadeertaana ku soo yaaca Ixsaan, qof alaala qofkii u baahan Ixsaan Herbal Oil qofkii u baahan jibli iyo tafaariiq ayuu naga helayaa. Marka walaalahayga Soomaaliyeed waxaa jeclahay wax kasta oo faa'iido aan ku arkay maxaa la dhahay inaan idin faa'iideeyo iyo wax kasta aqaano iyo wax tayo leh. insha Allah productyaasha kalena waa ka heli doontiin. qofkii maxaa la dhahaa anfici weysana lacagtiisa ayaa celis ah. marka sidaas iyo waxaa idin leeyahay asxaabteyda aad ayaa idin jeclahay. dadkayga Soomaaliyeed aad ayaa u jeclahay. koos maxaa rabaa inaan keeno banaanka keeno wixii aniga aan familkeyga ka bartay oo maxaa la dhahaye ee ku dhaqmaan oo caafimaad ah oo secretka u ah inaan walaalahayga Soomaaliyeed dadkayga Soomaaliyeed la sheer gareeyo oo ay ka helaan faa'iido iyo caafimaad. sidaa u ognahnay mudaawaadka faa'iidooyinka leh the mostly India ayay ka imaadaan. dadkeenana sida loo isticmaalo badanaa ma yaqaanaan iyo sida uu mid kasta faa'iido u leeyahay. anigana maxaa diyaar u ahay wax kasta oo faa'iido leh inaan idiin soo bandhigo ama YouTube-ka ha ahaato as in business ha ahaato inaan idiin keeno oo idiin sheego geed kasta iyo faa'iidadiisa oo alaabta loo yaqaano as in Indian u yaqaanaan Ayurveda haddaa research ku samaysid waa waxyaalo dabiici ah oo maxaa la dhahaa la heli karin. wax kasta muxuu u baahan yahay. marka asxaabteeda insha Allah the next video ayaa idinku